qofku maalinta qiyaame markuu soo istaago meesha lagu xisaabayo kama dhaqaaqo ilaa iyo afar la weydiiyo afartaasina waxa ugu horeeyay rasuulku tilmaamay qofka waxa la weydiinaya cumrigiisi iyo wuxuu ku soo qabtay iyo cumriga qayb kale oo kamid ah oo laakiin ah waxyaabaha ugu muhiimsan bini'aadanka soo mara dhalinyarnimadiisi iyo wuxuu uga soo faa'iideystay ma garanayo waqtigu inuu yahay markaasi xataa rasuulku uu sheegay sidoo ku sugan yahay alayhi salaam inay laba shay dadku nimcadooda kuma baraarugaan ilaa markii waayaan oo rasuulku tilmaamay salaam inay tahay caafimaadka iyo firaaqa marka qofku waqtiga firaaqa uu haysto wax la dilo oo meel cidla laga tago waxa kamid ah waxyaabaha in haysta jilwal la'aanta qofku inuu kala garanayn waagu uu bariyaa gobolkuna uu dhaca maxaad qaban doontaa halka dunida la gaaray maanta inuu qofku qoondaysto war 60 sanadood hadaad noolaato ilaahay ku daayo 60 kaaga sano maxaad uga faa'iideysanaysaa inagana maclasaf waxa naga mid ah dad aan garanayn biritool hadaad noolaato ilaahay waagu ku barsiyo maxaad uga faa'iideysan doontaa oo jilwal la'aanta ah waxa kamid ah salaad la'aanta waliba inaga qofkeena dadaala yani waxyaabaha inagu tarbiyada inagu tababaro waxa kamid ah qofkeena dadaala inuu 5 salaadood war 5 salaadood hadaan tukado وبالله توفيق بقى صح شنت صلاة تواسي ونكسن لكن صلاة نوافشها الرسول عليه السلام كنت دالي تروتو كان شري إنه قلنا متكنا أذكر وأنت وحكم إذا وحيابها اللي نقوم الشقية دي بلندت كأنه كايسطو بنتا بلندر هذا حنتا واللي بدمر بي أكفريا إنك استهلا قلنا مكبرتين مقاحي الله في القيبة وحيا مشكلات كوجو بدنين هايستا أي كميتهاي هذا نفتا وحلها إمام الشافعي رحمه الله haddii aanad naftaada ku mashquulin xaqa iyada baadilka kugu mashquulinaysa oo micnaheedu yahay haddaanad hoggaanka u qaban iyada hoggaanka ku qabanaysa oo waxay jeceshahay iyo waxay rabto kugu mashquulinaysa